qalabkan oo loogu talagalay in loogu adeego dadka naafada iyo kuwa qaba xanuunada aan awoodin in lixaadkooda ay ku socdaan ayaa lagu wareejiyay maanta maamulka garoonka diyaaradaha Oshaaka ee magaalada Gaalkacyo. madasha wareejinta qalabkan ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista iyo hawada Galmudug Cabdullaahi Maxamed Cali, mas'uuliin ka socota hay'adda daryeel bulsho guud iyo maamulka garoonka diyaaradaha Oshaaka ayaa waxa uu horeyn ka hadlay Burhaan Warsame Xirsi oo ku hadlayay magaca hay'adda DBJ iyadoo qalabkani ku wareejisay markii hore wasaaradda gaadiidka duulista iyo hawada Galmudug. halka u joognaa inaan ku wareejino wasaaradda xogaa yar oo kuraas ah kuraas oo ugu talagalnay in loo adeego bulshada maadaama isbitaalka garoonku yahay meel public ah oo bulshada dhan loogu adeego waxaan aragnay baahida loo qabo in maaragtay kuraas noocan loo helo sidaa darteed wasaaradda ayaan ku wareejinaynaa. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Galmudug Cabdullaahi Maxamed Cali Cabdullaahi Aeroport ayaa isna sheegay in qalabkani uu qayb ka yahay qalab aynkan oo kala oo la gaarsiiyay ilaa 6 garoon oo ku yaala Galmudug. saa u jeedaanba maanta waxaan hor yaalla qalab ka loogu talagalay dadka curyaaminta ah ama dadka dhaawaca ah ee ka dhoofaya garoonka ama ka soo degaya. alaabta tan hor taalla waxaan in muddo ah hay'adda daryeel bulsho guud oo magaceeda marka la soo gaabiyo loo yaqaan DBG muddo 3 bilood iyo haddaanay ka badnayn 4 bilood baan kala xiriireynay sidii ay nooga caawi lahaayeen baahidan garoomada dhammaan ee Galmudug. halkan waxaan ku cadeynayaa saa u aragtaan horteena maanta waxa yaala 8 xabo ma aha 8dan oo kaliya daryeel bulsho guud waxa ay nagu caawisay waa dhammaan aeroboorada Galmudug ka soo bilow Gurceel Cabudwaaq Dhuusamareeb Gaalkacyo Cadaado iyo Hobyo. ugu dambeynna Cabdullaahi Maxamed Aadan oo ku hadlayay magaca maamulka garoonka diyaaradaha Oshaaka ayaa ka mahad celiyay qalabkan lagu wareejiyay isagoona sheegay inay baahi weyn u qabeen marka loo eego howsha shaqo ee ka soconaya garoonka diyaaradaha Oshaaka. marka waxaan leenahay hay'adda iyo wasiirkaba aad bay u mahadsan yihiin aad baan ugu baahnayn halka xabo bareelaha iyo waxaan haysanay hal xabo kuwaan oo kale ah marba 5 qofood iska imaanaysa marba 10 qofood imaanaysa marba waxa imaanaya 8 kaas baan ku celceli jirnay maanta waxa majaraha ka soo furtay meeshii wasiirkii iyo hay'adii way noo keeneen aad bay u mahadsan yihiin intaan iyo in ka badanna waan ka sugaynaa intaan aad iyo aad ay noo anfacaysa baahida ka jirtana baahi xisaaban ma aysan ahayn. Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.